Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay qanaacada faa'iidada ay leedahay. Qanaacadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aan dhammaanaynin. Qisadan ayaa waxay dhex martay nin boqora iyo nin u shaqay jiray. Nin boqora ayaa wuxuu jeclaystay inuu abaalmarin siiyo ruux shaqaalihiisa ka mid ah. Markaasuu wuxuu ku yidhi, nin yahow, maadaama aad muddo badan ila joogtay, waxaan jeclaystay inaan abaalmarin ku siiyo. Sidaa darteed waxaan leeyahay dhul aad u fara badan. Waxaan kaa doonayaa inaad dhulkani inta aad awooddo soo cabirato ilaa inta tabartaada la eg tahay. Ninkii aad ayuu farxay, wuxuuna bilaabay inuu socod ku cabiranayo dhulkii. Ninkii socod ayuu bilaabay. Sida u socday oo u cararay maalinkii dhan ayuu wuxuu gaaray masaafo aad u fog. Aad ayuu u daalay. Markaasuu wuxuu ku fikiray maadaama uu dhul badan helay inuu u soo noqdo boqorka una sheego in intani ku filan tahay. Hase ahaatee ma uusan ku qancin. Wuxuu bilaabay haddana socod labaad. Waa uu socday ilaa uu gaaray masaafo aad u fog. Kadib wuxuu go'aansaday inuu soo noqdo. Hase ahaatee haddana wuxuu ku fikiray maadaama ay weli fursadu u furan tahay inuu socodkiisa sii wado. Ninkii waa uu socday ilaa markii dambe u gaaray meel uusan ka soo laaban karin. Ninkii markii xaaladii sidaa gaartay ayaa waxa dhacday inuu wadadii ka lumay, isla markaana uu ku dhacay waddo islaameed ilaa markii dambe ninkii halka uu ku dhinto. Qisadani halka ayay ku eg tahay. Hase ahaatee qisadani waxaan ka faa'iideynaa qanaacada faa'iidada ay leedahay. Ninkani ma uusan ku qancin ilaa xad inuu qaato dhul ku filan, balse damaciisii wuxuu gaarsiiyey inuu ka baxo qadka, isla markaana uu ku waaya naftiisii halkii uu heli lahaa. Sidaa darteed waxaa wanaagsan mar weliba inaad ku qanacdo waxa Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey. Maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa qanaacadu waa keed aan kaa dhammaanaynin. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamayelka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba aan soo dhigi doono. mahadsanid.